السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته داودyaal kusoo dhawaada kulmi cusub ee Sports TV waxaanu eegaynaa markaan suuqa kala iibsiga maadaama suuqa kala iibsiga ay ka harsan tahay muddo aad u kooban xilli ciyaareedkana uu soo dhamaanayo ciyaartoyda qaarna ay xor noqon doonaan ay ku biiri doonaan naadiyada ay doonayaan bisha soo socota ee June ciyaaryahankan lagu magacaabo Tony Rudiger waa ciyaaryahan muslim ah ciyaaryahankan ayaa waxaa wariyaha sheegaya xaqiijinaya in ciyaaryahanka naadiga Real Madrid waa daafaca kooxda Chelsea Tony Rudiger iyo ciyaaryahan kale ee loo yaqaano Tony Rudiger ay heshiis wada gaareen labada kooxood uma baahna Real Madrid inay Chelsea heshiis la gaarto kaliya wuxuu u baahan tahay in ciyaaryahanka heshiis shakhsiyan la gaarto kabacdina lagu heshiiyo contract uu saxiixanayo iyo lacagaha uu ka qaadanayo naadigaas ciyaaryahanka ayaa heshiiskiisa ay la gaartay kooxda Real Madrid wuxuu dhacayaa ilaa 2026 hadda hujina 2026 afar sano kadib afar sano heshiisa sanad dheeraad ah loogu madarin intaas oo sano oo kaliya oo la joogaya naadiga Real Madrid kadibna waxay noqon doontaa inuu naadi kale ku biiro ama kuwa dacagta isaga fadhiisto ama oo naadiga Real Madrid heshiis kale cusub u siisiyo waxaa lagu dhawaaqayaa heshiiska uu leeyahay wariyahan lagu magacaabo Fabrizio Romano markuu heshiiska ka soo gabagaboobo Chelsea koleyba FA Cup way ciyaaraysaa finalka kulan Premier League u dambeeyay way ciyaaraysaa Real Madrid sidoo kalena finalka Champions League ayaa ugu dambeeyay kulan ay ciyaarto oo 28 bishan May ku jirno kadibna waxay ku dhawaaqi doonaan Antonio Rudiger inay la soo saxiixdeen isla Antonio Rudiger wuxuu ka bedeli doonaa ku biiristaanka kooxda uu ku biiray kooxda Real Madrid Chelsea ma tabi doontaa koleyba marka la fiiriyo Rudiger wuxuu kamid ahaa difaacyada ugu fiican kooxda Chelsea 2 sano ama 3 sano ay ugu dambeysay Chelsea ma tabi doontaa ciyaaryahankan Real Madrid wuxuu ka bedeli doonaa ciyaaryahankan Tony Rudiger sidoo kale wali suuqyada kala iibsiga ku jirnaa kooxda kubadda cagta ee Arsenal ciyaaryahanka ciyaaraya lagu magacaabo Reece Nelson ayaa xidig Ingiriis ah balse ka soo baxay akademiyada kooxda Arsenal ayaa sanadkan wuxuu ama ahaan u aaday kooxda kubadda cagta ee Feyenoord ee dalka Holland ciyaaryahankan ayaa raba inuu Arsenal kala hadlo mustaqbalkiisa waxay ka damacsan yihiin sidoo kale kooxdu hadda u ciyaaraya oo Feyenoord oo ama uu joogo ayaa rabta inay hal sano dheeriya ku sii haysto ciyaaryahankaasi oo uu sii joogo ama balse naadiga kala jiro oo kooxaha Ingiriiska ah Feyenoord kooxda hadda u ciyaaro oo ama ugu joogo waxa la leeyahay weerarta inay sanad kale ama ku sii darsato waayo kama bixi karto inay gadato ciyaaryahankaasi si ay u sii haysato ciyaaryahanka waxa doonaya kooxo kale oo Ingiriis ka dhisan balse wuxuu asiga muhiimada siinaya Arsenal qorshaheeda iyo wixii ka damacsan tahay laga yaabay inuu ciyaaryahanka doorbiday inuu Real Ingiriis ka ciyaaro maadaama meesha uu ku koray ama uu ku dhashay ama waddanka ku dhashay Ingiriis ku yahay kabacdina uu danaynayo inuu dhulkiisa hooyo ka ciyaaro sadarteena naadiyada ka ciyaara naadiyada ka ciyaara Real Ingiriiska jeclaan inuu ciyaaro lama cadeyn ilaa hadda naadiyada doonaya laakiin naadiyo badan oo Ingiriis ka dhisan ayaa baadi goobaya ciyaaryahan Reece Nelson ayaa qaab ciyaareed fiican ku soo madhigay horyaalka dalka Holland oo ciyaaray kooxda Feyenoord balse la arki doonay markuu siisa ka dhamaado oo heshiiska ama uu kula joogo kooxda Feyenoord oo soo gabagaboobo meesha oo u jihaysan doono balse wuxuu doonayaa inuu Arsenal la hadlo ciyaaryahanka lagu magacaabo Mikel Arteta si uu u ogaado mustaqbalkiisa kooxda kubadda cagta ee Arsenal wali waxaynu ku jirnaa wararkii sportska qaybta loo yaqaan suuqa kala iibsiga ciyaaryahanka lagu magacaabo Gabriel Jesus ee ciyaara kooxda Man City wakiiladiisa ayaa waxaa la sheegay inay wada hadal kula jiraan kooxda Arsenal ayaa u soo bandhigtay wakiiladaasi iyo Gabriel Jesus waxa ay ka damacsan yihiin ama projectiga ay dhisayaan naadiga noocay doonayaan ay dhisaan waxa la sheegay inuu ku qancay Gabriel Jesus Arsenal waxay u soo bandhigtay oo ah sidii asiga u doonayso qaabkay rabaan inay u ciyaaraan in naadiga sida loo dhisayo oo inuu qayb ka noqdo Gabriel Jesus uu ku qancay waxay u badan tahay in waxa jirto leeyahay this possibility we are discussing waxa jira possibility labada kooxood isku afgaranayaan ciyaaryahanka heshiiskiisa wixii hordhaca wuxuu ahaa inuu ciyaaryahanka fahmo naadiga jihada u socoto markuu fahmay kabacdina waxa dhiman kaliya in laga wada hadlo how many years inta sano oo contract uu saxiixi doono iyo lacagaha uu qaado doono mushaar ahaan ee kooxda kubadda cagta Arsenal kadibna waxa la sheegay kooxda kubadda cagta
Manchester City inaysan wax dhib ku qaban ay sii fasaxi doonaan ciyaaryahan Gabriel Jesus maadaama ay la soo wareegeen strikerka Erling Haaland oo ah ciyaaryahan aad iyo aad laacib u ah kaasoo booskaasi number 1 noqon doona Gabriel Jesusna kursiga keedka uu fadhiisan doono isagana uu ka cararayo kursiga keedka inuu fadhiisto maadaama koobka adduunkana uu la ciyaari doono xilliga winterka waxaa la sheegay inay jiraan 6 kale oo doonaya ama xiiseynaya naadigan sorry ciyaaryahankan 6 kale oo 6 naadi oo kale ayaa xiiseynaya ciyaaryahankan inay la soo wareegaan sidaa darteedna waxay sheegeen wakiiladiisa in uu isaga danaynayo inuu Man City 6 kulan ee soo socod ama final gameska inta ka dhiman horyaalka oo diiradda saaraya naadiga kubadda cagta ee Manchester City waxay mislada Arsenal oo u baahan tahay ciyaaryahankan Arsenal waxay u baahan tahay ciyaaryahan 25 gool dhalinaya season-kii Gabriel Jesus ma dhigi doona 25 gool season-kii wayna arki doonaa Arteta wuxuu u damacsan yahay balse so far Arteta shaqo fiican ayuu Arsenal ka qabtay Arsenalna 2 sano heshiis ah ayay ku abaalmarisay bal arki doonaa 2 sano soo socota ama 3 sano soo socota Mikel Arteta kooxda si joogo wuxuu ku soo kordhiyo